سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة سودوا هذا ما شاء الله. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صلى الله عليه وسلم. ما شاء قرية ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي سودوا هذا. عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليكم. ما شاء الله أيام ده هلكاس وإيجي الله جيتك. ناشر قراية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي سودوا هذا ما شاء الله. صدقة قف كان بحسن كرين شير هنوده بوكسيده هنوجو ريدو سودوا هذا وحاورين نوجو برتين عاونتي دتك ولا عليه أنا ما دام رمضان لو جرو سان أنا مارت دتكاس مساكين ولا عليه أنا أود أقولهن إني مارت محيها طولا أفركودا أي مارتين أيوة أي سود عسن كرين قارنا أي سن شقينين قارنا أي كاما كوجران different people أي سو كوجران أو مارت دت بدن أي سو كوجران أيان مارت عاونا ما أنتوا ومالين جمعيه ما شاء الله إلهي صدقة أي بحسدين إلهي ميسانك آخر الله أصاره شيقا وسوق بنا يا ولود عينا يا إلهي أنت أمد محمد أو رسولك أو كل جود إلهي سينيدود أنت بحسن كرتي أنت أنا بحسن كرين إنه حاجة أنا بحسن كرين oo aanan haysanin waxba oo laakiin jecel qalbiga ka jecel inay baxsadaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kuwaasna ilaahay waxa ugu bari iyagana sayniidooda jecesha inuu ilaahay u yeelo oo ilaahay iyagana niyadooda maadaama ay rabaan inay baxsadaan laakiin aysan awood u lahayn macnaha inuu ilaahay iyagana ka aqbalo waayo qof walba wuxuu jecel yahay inuu baxsado kan ku adagoo aanan rabin inuu bixiyo oo gacantiisa ay adag tahay inuu ilaahay gacanta u furo uu bixiyo walaalayaal marka soo dhawaada ma sha Allah tabaarak hawshii sida ay u socotaa wali shalay toole ma sha Allah tabaarak team gaarsiiyo waxay ka bixiyeen kaamamkay ka bixiyeen ma sha Allah tabaarak beejkoodu ku jira lambarkooda meeshuu saaraya iyagana cashadii way socotaa ninkii ku darsanaayo aniga xataa ninkii ila soo xiriiraayo raba team gaarsiiyo inuu ku darsado ma sha Allah iisoo dhawaaqa ila soo xiriira sida dhalinyaradii hadda ka hor camalka u halka dollar ku darsadeen si aan iyagana maarta aan ugu diro ay hawshii loo wado teeda kale waxaa jirto ma sha Allah tabaarak reer beledweyne kaam waay kaam dhan oo weyn waay kaamkii barbalenka jira idin sheegaa kaamka waa uu weyn yahay kaam weyn waay laakiin kaamkii oo dhan waxa waaye dadkii ma sha Allah markaan wax badan u haayo waan caawin karaa oo kaamkii oo dhan wax waan siin karaa laakiin ilaahay amarkiisa gabar ayaa waxay jeclaatay oo muxsinad ah laba qoys ay wax u soo dirtay waana soo geliyay ma sha Allah hadan inta idinka tusinayaa qeer Allah si labadaas qoys ayaan wax siiyay labadaas qoys ayaan wax siiyay oo gaarsiinay maanta saaki beledweyne kaamka khaatumo aan gaarsiinay just labadaas qoys waayo kaamka aad ayuu u weeyahay waa kaam aad u weyn marka labadaas qoys uun baan gaarsiinay oo aan jeclaanay inaan maarta afurkii aan labadaas qoys aan gaarsiino gabadhaas u soo dirtay waa loo adeega qeer Allah siiyo waana soo geliyaba iyagoo duceynayaan beejkaygu ku jira aan wax walba waxba ay tus ay taabsi meeshaan lacagti geeyo meeshaan sadaqadii geeyo dadka waa tusinaya iyagoo marka hore soo dalbadeen iyagoo haddana ma sha Allah tabaarak oo wixii loo geeyay waa isku soo daray saaka waa soo geliyay ma sha Allah tabaarak taas waa tii afurka waxaan kaloo idin sheegaya asxaabay ku soo dhawaada waxaan kaloo rabaa masaajid oo laga bilaabi doono mardhow tuuladan tuwaarey oo hoos timaado wala weyn daafeed
masaajidkaasaan rabnaa inaan isugu tagno iskaashato makufta aan dhisno biidni illaahi kariim. gabdho badanaa hadda isoo wacen kheyr allah siiyo, gabdho jarmanka joogo, gabdho holland joogo oo ay dhaheen masaajidka waa ku jirnaa, haba naga qadaninba. maadaama hadda dhagaxi iyo bulukeetiga hadda waxay joogtaa masaajidka, dhagaxa iyo bulukeetiga iyo shamiindada waay. saddexdaas qofkii raba wuu qaadan karaa. wuxuu dhihi karaa shamiindada iigu dar, wuxuu dhihi karaa dhagaxa iigu dar, wuxuu dhihi karaa bulukeetiga iigu dar. waayo masaajidka hoos waxaan rabnaa inaan ka samayno shub oo dhagaxe ilaa iyo haaf. kabacdi wixii intaas ka dambeeyana waxaan rabnaa inaan ka samayno bulukeeti oo iska macnaha normal maadaama hadda masaajidka uu yar yahay, booskana uu weyn yahay, laakiin meel yar oo ciriir ay ku dukadaan ayay soo geliyeen. macnaha beejkaygan soo geliyey, way soo duubeen, imaamkiyaa kasoo hadlay kheyr allah siiyo, oo maaragtay tabanaayo oo jecelna in maasha allah tabaarak dhahayna maxay ahayd hoole maama xaliimo iyo cali wiilka oo masaajidkaas dhisaayo kheyr allah si wadaadka dhisaayo, waa shiiq wadaad oo asagana dhisaayo oo lambaradeenna aan kusoo kala qoranay. haddii la rabo asaa loogu diro, haddii la rabo aniga, because hawsha waay. waxaan rabnaa maalin kasta markii hawsha ay bilaabato dhagax markii saas loo dejinayo, xataa in video aan soo gelino hebel intaasay baxsatay, hebel intaasay baxsatay, hebel intaasay baxsatay, dhagaxiyaa lagu soo gaday. waa kana kaarika dhagaxa intaasuu noqday, xisaabtan ay la socotiin. anigana buugaaba inta ii yaalo waa ku qoranaa laptopgeyga, waan gelinayaa xisaabta si la iskula socdo masaajidkaaseeti. tuutala hadda waxaa iri u tag injineer gay, xoogaa yaruu ka dheer yahay, injineer gay kabacdi maasha allah jisaakumullahu kheyr cabdullaahi jaylaani. waxaa iri injineer gay u sheeg injineerka macnaha how much oo noogu koosta garaynaya hawsh, macnaha how much oo noogu thank you very much, how much oo noogu koosta garaynaya. marka wuxuu yiri wuu ku maqan yahay ilaa hadda ma la oga, laakiin inta ku koosta garaynaya 3 kun 4 kun 5 kun waxay noqoto annaga dhexda u xiranayno, waana dhisaynaa iskaashata ma kuftaan nahay. waayo waxa la dhiso waxa ugu fiican waa masaajid, wax la sameeyo waxa ugu fiican waa sadaqo, soonka wax la bixiyo waxa ugu fiican waa afur. walaalayaalow soonkaaneeti wallaahi oo billahi dada sanadkii hore nala soomin, markasta shiiqyada way idiin sheegaan, oo sanadkan soo gaarin. sanadkaaneeti ilaahay uma qadarin, way naga tageen, way dhinteen. hataa dhalinyaray u badan yihiin. annaga gabaraa noogu jirtay, wiilaa noogu jira, dhalinyaro badan, dad badan. maanta sanadkan dhan hadda shacbaankii meedlee lasoo qoraay, dhimasholee lasoo qoraay. allah u naxariista hebel waa dhintay, allah u naxariista maxay tolo malaaq hebel waa dhintay, allah u naxariista wiilkan waa dhintay. ilaa kulligooda jaanis meelin, annagaa jaanis helna. jaaniskaas aan haysano aan ka faa'iidaysano asxaabay, ha laga faa'iidaysto. wallaahi oo bilaahi oo tallaahi dib ma usoo noqon kartiin. waayo soonkan hadda aan soo gaarnay allahu aclam soonka kale inaan gaarayno. waayo dad nala soo sooma sanadkii hore oo rajaynayeen soonkan inay soo gaaraan ayaanan soo gaarin, oo maaragtay ilaahay iska watay oo waqtigoodu oo intaas kusoo idlaaday. marka waxaa fiican inaan ka faa'iidaysano, oo waqtigu waa seef intuusan ku goynin ood adiga aad goysad. wixii aad la bixi kartid $5 $10 $1 xataa sadaqay kuu tahay. $1 xataa dhalinyaraa kusoo shubeen maasha allah. dhalinyaradaas weli ma qaybinin, hadda $17 camal ay gaartay. waxaan rabaa marka u buuxiyo oo ay soo guraan ay soo buuxsanto $50 xataa markay u noqoto. waxaan rabnaa inaan tiim gaarsiiyo u dhiibo casho fareesha loo bixiyo oo la dhaho dhalinyaradii $1 iyo $half waay. maasha allah tabaarak. okay fartuun malaaq waxaa ugu hagaajinaysaa xabiibtii lambaraa jiro hadda inta kusoo qoraya beejkayga boorkan wuu ku qoran yahay 2 lambar waay. marka kee rabtaa afurka maa rabtaa oo hadda aan bixinoona mise masaajidka rabtaa? masaajidka haddaa rabtid lambarkaygana waa ku qoran yahay meesha. hadda lambarka ku qoran waa keyga, aniga igu soo hagaaji magacaagaan qoraa, maxayd inta aad bixinaysid waa kaa qoraya. kadib waxa waaye hooshayana saas ku bilaabayna. hadda waxaan jeclaystaba ana inaan hadda maadaama soonkii 11 cisho ka dhiman yahay in masaajidkayaasha ay saf ku jiraan, masaajidka daafeed ugu horeeyo, kii baydhaban uu ku xigo kii daafeed. laakiin horta aan raba inaan taago maadaama kulayl ay ku jiraan, ay ku rafaadsan yihiin wallaahi. marka fartuunay kheyr allaha ku siiyo, hadhowti ila soo xiriir ama teleefonkayga meeshuu ku qoraya 42 ugu dambeeyo. haddii kale hadday ku jiraan dhalinyaradii ha kusoo qoraan meesha. anigana waxaan isku dayaaya inaan inta kusoo qoro teleefonka. waa maxay ahayd 42 ugu dambeeyo waay. anna waa isku taxluujina hadda inaan soo qoro si aad ugu soo hagaajisid. kaasna waa kusoo hagaajinaya, laakiin isoo wac whatsappka anaa kaa qabanayo. ii sheeg inta aad rabtid inaad ku darsatid. intaasaan rabaa inaan waa ku qorayaa because qoritaan la-aan wax ma soconayo. sida masaajidkii hore aan sameynoo kale oo gabdho muxsiniina nagu darsadeen, kulli waa wada qoray, kulli waa wada qoray. marka in la qoro waayo dadka, haddaanan la qorin waa wixii waa lagu wareeraa. marka waxaan rabaa inaan qoro intii ka qayb gashay, inta nagala qayb gashay, inta muxsiniinta inaan maaragtay aan isugu tagnaan rabnaa. oo laakiin sheegitaanka sadaqada in la sheegana aaday u fiican tahay. teleefonka meesha iigu qoran markaa hadda soo gasha liveka, anna intaan kusoo qoraya whatsapp waaye. isoo whatsappka waan kaa qabanaya. kadibna
انت عرفتي كتبنا مقعاقان قرا خير الله كسي انت ما شارت انا كدرت دو مساجدكي هدارت دغخه هدارت شميندا هدارت بلوكيتيغا حدو بلابنايا مساجدك يوصل اذن دافن حال غبرا اي سو خيتر ميكروفون يا ليغا تابانينبا ما شاء الله تبارك والله هذا ugu farxay waayo masajidki boorki la meeshi gali way soo wacda xalay telefonka iga soo wacda waxay tir abaayo telefonkii kala wax ma qabanayo because waqti dambe ahayd wuxuu joogaa daafeed uu joogaa cali ma ka qabanin laakiin anaa ka qabtay waxay tiri makrofanada meequu koosta gareynaya asaga iyo macala raadiyihiisa macala solarka $250 waayaan dhahay waxay tiri qofna ha iga siinin makrofanadii waa la qaatay marka maasha allah tabaaraka hawshaanita hoola ilaahay u hayno waaye ilaahay ha nagu garab galo ilaahay maxay ahayd toolaha naga dhigo kuwii wanaaga sameeyo waayo soonku uun baa laga faa'iidaysan karaa soonku wixii ka dambeeya waxa waaye nin walbaba waxa waaye hawshiisii iyo wuxuu u ordayaa wixii kale uu qabsan lahaa laakiin waxa la baxsado waxaa ugu fiican waa maxay ahayd toole afursiin iyo maxay ahayd toole waxaa ugu fiican afursiin iyo waxaa ugu fiican hadduu alla kuu roon yahay okay safe way okay kan ma ka soo gali karin waxaa ugu fiican afursiin iyo masaajid dhiso masaajidkan marka ha laga faa'iideysto aniga xataa walaa microfonkii hore busle iga fakaday waa rabay markay gabadhi saas itiri waa ka xishooday marka waxaan dhahay waayaha iri meelaha kala dhagaxa iyo nuuriyada iyo bacyaasha iyo iska gashanaya biidnillaahi kariim marka abay fartuunay lambarka meesha dushuu ku qoran yahay 42 ugu dambeeyo furo ugu dambeeyo annaha dhow markaan ka baxo hadda maba macnaha inaan dhaxda ku soo qoro qorotida rabay laakiin waa isku taxaluujinaya waan fiirinaya dhalinyaradii ma igula jirto because dhalinyarada kulligood waxay ku wada maqan masaajidka waan wacay laakiin ani shiiqa diyaar ii ah in loo duceeyo inta wax baxsatay in loo duceeyo saasa u soo galay mar walba saasaan sameeyaa inta wax baxsataa waxaan jeclahay in loo duceeyo oo ducadooda ay ka qayb galaan marka xabiibti hadhowtan ila soo xiriir fartuun malaaq jiirada ii soo gal whatsappka kor ku qoraya ma arkin oo telefonka mise waa ku soo qoraa markaan soo galay maarta kan fartu ugu dambeeyo waay marka hadduu qof kale ku jiro dhalinyaradii ay soo qori karaanna ha soo qoraan dhalinyarada hadday ii jeedaan furatu lambarkeyga hadday soo qori karaan ha soo qoraan maadaamay rabto fartuun inay maaragtay nagala soo qayb qaadato masaajidka marka hadday ku jiraan dhalinyarada waa haddii kalena aniga hadhowtay dib maaragtay takastigay facebookan ka wacaya gabadha fartuun khayr allah siiyo waa loo duceynaya wadaadkan soo qabanaya biidnillah lambarkeyga okay maasha allah tabaarak lambarkeyga qofkii xasan macalina soo galay samafala xasan oo lambarkeyga haddaa kusoo qori kartid fartuuna rabto masaajid aan dhisayn inay kusoo darsato lambarkeyga meesha kusoo tuur khayr allah ku siiyo maadaama aad og tahay oo aan isla shaqaynayna kolkii hore aan isla dhisayna masaajidka haddaa kusoo qori kartid because dhalinyarada kulli masaajid ay ku maqan yihiin waan wacay waxay dhaheen kulli waxay ii daareen bacodka waxay dhaheen masaajidaan dhex fadhinaa maasha allah marka anigana wadaadkii iga fakaraya waa isku soo tuuray marka walaalayaalow waa kaasaa aan ku dadaalno saan ilaahay dartiisa wax ugu qaban laheen ilaahay dartiisa masaajidada ugu dhisi laheen ilaahay dartiisa afurka aan u bixin laheen marka waxaan rabaa hadda inaan idin tusiyo maasha allah okay maaxiyaa soo qora khayr allah ku siiyo inaa ku jirtid ma umalaynaynin maadaama haddaay aan ku soo waco masaajidka aad jirtay oo codka ii furtay khayr allah ku siiyo hadda waxaa idin tusina waa kaasaa lambarka fartuunay qoro ina soo wac whatsapp ahaan iga soo wac haddaarta masaajidka inaa ku dirsid haddaarta dhagaxa inaa qaadatid haddaarta shamiindada inaa qaadatid haddaa rabtid inaa qaadatid bulukeetiga waa kana 42 ugu dambeeya waa 6124925542 laba lambaraa ku qoran midna waxa waaye wiilka dhisaayo wadaadka dhisaayo waayo oo joogo daafeed joogo waaye kanna ani keyga waaye maadaama labadeena lambarba aan kusoo qornay asna haddii lagu tuuro wuu iisoo sheegayaa laakiin magaca inaan qoro waaye magaca important ee magaca inaan qoraan jeclahay khayr allah ku siiyo maaxii ajar allah kaa siiyo iyo inta igu caawiso lambarka soo qortaba kulligiin ajar allah idinka siiyo xasan macalin adigana ajar allah kaa siiyo hawshaan hoola ilaahay u hayno waaye saaki laba famiilo aad ugu welwelsanaay maadaama kaamka uu weyn yahay kaamka beledweyne 150 qofood ku jirto ayaa labadaas qofood waxaa laga soo doortay bis laba qofood bisaa lasoo doortay wallahi labadii qofoodaa iska siinay maasha allah tabaarak ayagana way ka welwelsanaayeen waxay dhaheen annaga keliya ma nihin dad kalaa ku jiro dadaa nagula jiro dadkii kale waa baahin gurigoodaa loogu geeyay ee anigiina maxaan qaban karaa waxaan qaban karaa male waayo wixii waxaan dadka u dhex galaayo waay waa kuwa idin tusinayaa markii aan u geynay iyo markii aan maaragtay maasha allah sadaqada waxa waaye meel kastay ku baxdaa waa kaas maarkoosiin maxaa ku dhacay teleefonkeyga maanta sugi bal teleefonkeyga wax iiga dhacay sugayaan what happened teleefonkeyga ma aqaan something is wrong I don't know wuxuu yahay okay haddaan taabta okay
wax sida virus lagu soo furo camal aan arkay wuxuu noqday muraayad bibi camal okay warahmatullahi wabarakatuh shikada soodii wala soo gaari allah ku barakeeyo okay gabadhii ayna dhaaftay because telefonkayga waxaa u jeedaa sida wax virus lagu soo furo camal dadkina mar waa baxayaan marna waa soo noqonayaan salaamaad sadaqa aruurinooya walaalayaal oo siyaasad uma fadhiyo viruskayga daaya because marna bibi uu noqday wax sida bibi ma aragto oo roob soo da'ooy camal marna wuxuu noqday idinka dhan hal maraa baxoosiin ma idiin jeedi marka gabadha idiin daara waa ka maamada ayaa soo sadaqaystay raashin oo ingiriiska joogta maxay u ducay maamada Allah siiyo maamada sayti gabar muxsinada soo dhiibatay wadaadkii hanta soo waca sharafta leh ilaahay khayr ha siiyo amri dheer oo ibaado leh Allah waxaa la siiyey gabadhan miskiinta ilma haysata ilma yar iyo oday meeshay ka soo bixi wax khayr qaba Allah u gariyo muujadiin si u jooga hal mar uu baxaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا سودي ولا سوغاري الله كبركة ماشي ولا سودي وخير خبط الكود الله سوغري beejkayga ku jiraan waxaan jeclaystay labada ugu horeysa oo soo galiyay aayeen بركة سماها هذه هذا لو فرح waa kaas weer gabaraa ka soo duceysata khayr allah siiyo مالته هلاك أبال مري يا كنت أين قبل وكنت أين ما sha allah ma raxiim waa kaasaa markii hore waaye ay soo dalbanaysay kaamka oo kaatuman jooga qaanka khaatumay ku jirtaa beledweyn oo waayeelo leh oo maata leh 80 qoys waaye qoys walba wallahi waxa uu haysta ma lahan waxaan rabnaa inay ilaahay dartiisa lagu soo gaaro soonka waa kaas gabadhaas waa gabadha saaka wax loo geeyey iyo odaygan waaye ما حاسنا iyo odaygan بقولة كإيماني واكاس. وصحرني لبعتنا سنة فريدني يعني الحمد لله وحيالها الحمد لله رب العالمين أمد waa kaas labadaas qofood aan toosiyey maasha allah odaygaas waaye beejkayay ku jiraan ayagoo cabanaya dhahay wax ma haysano soonkiya lagu jira waxaan ku afurna male 80 qoysaan kunahay 150 aan umaleynay 80 ay dheen 80 qoysaan marka aniga awoodeedu waxay noqotay maadaama aan dadku u dhex galo oo meel walba aan hawsha ka hayo oo kaliya ma aha hal meel ani baydhabaan u ordaa daafeed masaajidkaana hadda ka dhisooya xataa daafeed jimcaha soo socdo afur weyn aa la bixinaya gabdho muxsiniina soo baxsadeen afur weyn oo masaajid ilaa 150 aa neefaf loo qalaya gabdhaha soo baxsadeen iyagana daafeed weli afur lama siirin oo maadaama uusan kaam lahayn laakiin masaajidka iyo wadaadadii oo ayagana afur la-aan ahaayoo dad kale iska soo afurinayay ayaa gabdho soo doorteen daafeed maasha allah 150 ka badan inay tahay 300 inay tahay u malaynaa wadaado oo masaajidka daafeed ku yaalo ayaa jimcaha soo socda hadoo ilaahay nafta macaan nagu suma beenaan sheegaynaa ayaa neefaf loo qalaya ayaa la ducaynaya waana soo duubaya waa arkaysiin khado weyn aa loo karinayaa bariiskoodii hilibkoodii hadday rabaan geelay qalanayaan afurkoodii waay daafeed jimcahaas waa markii ugu horeyso daafeed aan afur u geeyo waay maadaama daafeed maasha allah tabaarak kaam ma leh kaamanku waxay ku badan yihiin beledweyne garoowe iyo baydhabo garowana hal islaan ah gabar wax soo siisa asagana kaamunka hiq way buuxaan laakiin aniga kaligeeyaa ahay kaligeeyaa ordooyo mar waa soo galaa qof kaloo ila soo galo live-ka male ani kaligeeyaa hadlo wixii dadkaasaan u dhex galaa wixii inta ka soo galo dadku way juus garayaan waxay dhahaan garowaan rabnaa noogu tuur waxaan rabnaa baydhabo noogu tuur baydhabaan hool aad u badan ka qabanay baydhabo aan hool aad u badan ka qabano cashayaalna aan bixino dadka baydhabo ay wada dalbanayeen kaamunka baydhabo aad xoogaa yaro abaar u alxamdulillah ilaahayna waxaa ugu baryay mar walba waa u duceeyay inaysan annaga noo baahanin oo ilaahay faraj u furo oo ilaahay irsaaqada meelaan la filayn ilaahay uga soo geliyo oo nala yidhaahdo kaam dambe maba jiraayaba ilaahay taasaan ka baryaynaa waayo binu aadanaana annaga waxba ma kabi karno waa uun iska caawinaynaa maana annaga hal maroon bariis u geyno wax uu ku taraay male dadkaas waxay u baahan yihin beerahooda inay ku noqdaan beerahooda fashaan maaragtay maxay ahayd hoole dhiirigeliyaan shaqaystaan ay u baahan yihiin uma baahna dadkan in maxay ahayd hoole maanta dhan bariis iyo timir iyo sanad kasta sanadkii saddexaad waay aniga aan hay-adayda aan ka shaqaynayo sanadkii saddexaad waay oo aan u taaganahay le inaan kaam xamarna kaam waa ku yaala laakiin xamar kaamkiisii maba isku taabaninba dhalinyaro maasha allah firfircoonaa soo baxday beejidkay ku jiraan ayagaa u geeyo marka xamar waxa waaye dadaaba u taaganba oo u geynayo kaamamkii oo ku wareegoyaba laakiin meelaha la iloobay baydhabo oo kale garoow oo kale hadda garoow hal qof lee la siiyey kaamkii oo dhan waa gaajaysan yihiin mar walba waa isoo waca wuxuu dhahaa aawe haye waxaa kaloo jirta hargeysaa laiga soo wacay ayagana waxay dhahayaan wadaadaannahay kulligeen imaamaannahay na soo afuri meeshaanaan ku jirnaa aniga waxa waaye dadka uun baa u dhex galaa waxaan dadkaas ka soo qaado wax walba waan dalba ani si kastaa isku dayay wixii way iisoo macnaha way ii suurageli waayeen wixii dhan markii koroonaha dhacay oo wax dhan aan dalbaday wixii dhan istug ay noqdeen way istaageen ma fahanteen marka waxa waaye wixii haddii aniga ay isoo geli lahaayeen maasha allah
waxaygiyaanba ku tuurtuuri lahaa laakiin dadkaan u dhexgalaa dadkaas wasaakiinta maxaan u dhexgalaa dadkeena muslimiinta qofkii sadaqada soo dhiibto uun baan meel ku toosiya ayaan ka bixiyaa teeda kale marka waxaa jirta walaalayaalo kheyr allah idin siiyo masaajidkaaseetina waa kaasaa oo daafeed asagana ha laga qayb galo ha laga faa'iidaysto faa'iido weyn waay walaalayaalo waxaan u jeedaa ani hadda way arkoysiin laakiin saa u joogtiin hal maraa buxoysiin virus waaye waxaan la yaabanaha mataqaanaa way aniga viruska la iigu soo furaa maxaan suubinooyaa walaalayaalo viruska iiga daaya viruska waxa igu soo tuuray saa u jooga hadda fiir saa u joogtiin hal maraa bixaysiin kulligiin hal maraa wada shubmaysiin intaa ii safantihiin mogtahay intaa ii wada safantihiin hal mar saa u joogtiin hal maraa bixaysiin haddana waa soo noqonaysiin marka I don't know wallahi marka insha allah biidnillahi sadaqadaa u taaganaya ilaahay dartiisaa u taaganaya kii virus iyo bakti iyo waxoo nijaaso soo gamow asaa gacanta ka kaduudanaya kol horena cajalayaashii busle masaajidka aan u duubo dhan waa iga tirtireen I don't know why ay ii daba socdaan ilaahay dartiisaa u taaganaya sadaqadaasaa u taaganaya masaakiimiintaana caawinoya aan ku caawinoyaan maalin kasta hadda 2 beri ma soo gelin waa iska nasanaya wacalaykum assalam waraxmatullahi wabarakaatu 2 beri ma soo gelin laakiin hawshi waa wadnay balud weyne wax la geeyey tiim gaarsiina hawshi way wadeen cashadii ay soo bixiyeen hoosna waa ka shaqaynaya gabdhaha ka wacay gabdhaha hadda soolarka gateen oo kale maasha allah gabdho kaloo daafeed baxsadeen ma marka aan soo galin xataa hoosaan ka shaqeeya ani taleefanaan wacaa waa qorqoraa dadku maxay ahayd tool intay rabaan inay baxsadaan waa maaragtay asxaabtaydi familiga kharaabada inta aan aqaano wada dibadda joogaanaan hoos ka wada wacaa ma marka qaarkood aanan soo gelin hadda 2 beri ma soo gelin laakiin maanta waxaan usoo galay maadaama shala tiim gaarsiiye dad joogaan maraykanka soo dhiibteen cashadii iyo gabadhan muxsinada oo soo baxsatay reer beledweyne maanta labada qoysiisay ayaan raba in loo duceeyo waaba hilmaamaba shiiqiyaan maasha allah tabaaraka aan biidnillahi kariim fiirinayaa maanta asagana wuxuu yiri soo dhaqsoo yiri anigana waa kasoo dahay dhib male haddaan waayo hataa mamar waa iisoo duubaa cajaladuu soo duubay ayaan maaragta u daarayaa iyo waxaan rabaa gabadhan maasha allah fartuuno iyadana tiri markay ila soo hadasho waa u qabanaya wadaadka u qabanaya iyadana waa loo duceynaa wax alla waxay kusoo darsato annaga qof alla wixii kusoo darsado haba yaraata haba badnaata wadaada u qabanayna waa loo duceynaa ducada waa isaga baahana annaga maalin kas ducaa isaga baahana maasha allah tabaarak marka waxaan daarayaa masajo ii dhaafi maasha allah okay masajo ii بسم الله الرحمن الرحيم مسج الحمد لله إيداف. رب العالمين because wuxuu yiri rooba daay ama soo gal والسلام على رسول الله صلى الله عليه okay waa ii وسلم dhaaf khayr allah siiyo أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا mikrofonka maa geliyaa sug وإن الله si mikrofonkaan gelinaa because roobaa da-ooyou yiri maanta baydhabo roobaa ka socdo khayr allah sii wadaadkan baydhabuu jooga marka markii hore uu soo gal yiri anigana xoogaa waan iska yara u culsaay marka hadda markaan soo galayna wuxuu yiri waa kuusoo duubaa waa idiin daara isugu wax yar meegaan geliya لا يرحم الله من لا يرحم الناس وكما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب khayrka العالمين noo sheer gareeya qofkaan baxsan karin والصلاة sadaqadaha sheer والسلام على gareeya رسول الله صلى الله صدقه عليه وطهر. وسلم أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا aamiin ya وإن rab. الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم maasha allah لا يرحم الله من لا يرحم الناس وكما قال رسول آمين الله حبيبتي صلى الله فاطمة. عليه وسلم aamiin xaliim الحمد لله ولا ليال الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكالي الله إن أبوري الدون كان إنا كيني أنك وحباء هين الدون كان إنو أبوري هذا ما أنت وحان نهي وحان نقد جاي الله سبحانه وتعالى عافمات كان هيسنو علمي كان هيسنو عيال كان هيسنو حولها هيسنو طمان وحان نسي الله سبحانه وتعالى ورجيتنا إلهي نوسينا وح كلام ما هو امتحان الله سبحانه وتعالى قفكو وحسينا هو امتحاني صح قفكو وح الآن كدينا هو امتحاني إنك وح لسينا ورجيتنا الله سي جعل أسق الله قوى معهن وامتحان إلهي حقي سكاء هذي haddii wadadii loogu talagalay iyo sidii loogu talagalay xoolihiisa u bixiyana ilaah baa ka raali noqonaya oo ilaah baa u barakaynaya صح ما شاء haddii ninkii bixin waayo oo meelo baas mase wixii ilaahay ugu talagalay inuu nafaqeeyo bixin waayana allah subxaanahu wa tacaala uma baahna xoolihiisa dhaqaalihiisa ilaahay uma baahna allah subxaanahu wa tacaalana aakharuu ka jaazin oo awaalmarin khaldan baa la sida isagana awaalmarin xun buu helayaa marka walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala dadka waxa siiyey ujeedada ilaahay u siiyey way ku imtixaaman yihiin jecel ayaga loo qabo si qaas ah looma siinin waxaa la doonayaa inay wixii waajib lagu lahaa ay ka baxsanaa ilaahay dartiisa ay wax u bixiyaan
ninkii qaaruun la dhahayay baa allah subxaanahu wa tacaala qooma muusa ka mid ahaa ilaahay xoolo badan buu siiyey xoolo aan la soo koobi karan buu siiyey ilaahay ku xirnow oo ilaahay u bixi waxsin kamaa axsana allahu ilayk suu ilaahay axsaan kuugu falay adigana u axsaan fal markaasuu kibiray wuxuu yidhi qaala innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii war waxaan aniga ragnimadeyda iyo shaqadeeda iyo karti ayaan ku helay dee qofkii wax doonayaa ha shaqaysto allah subxaanahu wa tacaala kibirkiisa markuu arkay asaga iyo xoolihiisaba ilaahay dhulkuu la jaray dhulkuu ilaa ay haddana wuu sii socdaa rasuulkaa noo sheegay maalinta qiyaamo ah markuu dhulka dhacna qiyaamaha ayaa ku dhacaya wuxuuna noqday nin ahlu naar ahoo naarta gelaya oo ku waaraya waxa u sabayna waxay ahayd kibir iyo xoolihii asaga ilaahay siiyey waddadii loogu talagalay aan ku buuxinin marka sadaqada sideedana xoolaha ma nusqaamiso rasuulka ayaa noo sheegay bal xoolaha way badisaa marka soonkii baa noo gebagabaha insha allahu tacaala dadka muxsiniinta walaalaha ixsaanka falaya dadaalkiina dadaal ku dara allah subxaanahu wa tacaala baa idinka abaalmarin doona adduuniya aakhiro insha allahu tacaala waxaan haysanaa haddaan baxsano ilaahay bedelkoodii ka khayr badan buu ilaahay noo ballan qaaday man da aladii yuqridu allaha qardan xasana yaa ilaahay deyminayo oo wanaagsan ilaahayna u bedelaya marka allah subxaanahu wa tacaala baa bedel khayr qaba idin siinaya waxaad baxsanaysaa wax iska yar laakiin maalin aad maanta aga baahi badan tahay baa ilaahay bedelkoodii ku siinaya marka insha allahu tacaala sadaqadii hala sii wado waqtigiigaa qariib ah insha allahu tacaala soonkii isagaaba inoo gabagabo ah marka dee ha laga faa'iideeyo waa janis ma ogid inaad gaari doonto ramadaanka kale iyo in kale maanta waxaad haysato la bax ilaahay dartiisa ula bax intaas baa aakhiri adduun ku anfacaysaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wuu soo wadaa weli wuu duuboyaa gabdhihii usoo duceynaa waa sii sugaynaa insha allah intaas anaa sii hadlaayo wuu soo duuboyaa because gabdhihii inuu u duceeyo waaye oo maanta la baxeen kheyr allah siiyo maxaa la sheeg afraada oo beledweyne wuu soo duuboyaa weli shiiqa laba cajal uu ka kala dhigay recording uu sameynaya waan ka sugayaa biidni illaahi kariim kheyr allah siiyo جزاكم الله خير جزاء جنة الشيقان فلنتري وكشقيا وأنا وكله إلهي ديت كيسا وتاجيها أسجنا قرب كي وتاجيها إمام مساجد ما شاء الله دعاء هذا وبحضار أنت يقولوا صادر سطية وهريو لو دعاء ما شاء الله تبارك الله وحي يجعليهن والله واهلين قبله يلبحين صدقة وحيدين وحارقنا حليم وما شاء الله تبارك صدقة هذا وفي عنده وحنا قلنا دبي أيان نوفض هذه wax anaga maxay hayto wala isdheeyna lacag meel nooga xirxirneed aan noo soo furfurantay sadaqada marka ciyaar ma aha dadka laakiin way yasaayaan waa la liidayaa waa kana aniga hadda maanta siyaasadda daan u fadhin lahaa oo qaylin lahaa waa la ii sheer gareyn lahaa ilaa ikun haddaan karbaash kusoo qorto ilaa ikuna la ii sheer gareyn lahaa laakiin maxaan wadaa jidka ilaahay hawsha ilaahay masaajid afursiin masaakiinkan oo ilaahay oo maanta waxba uusan haysanin laakiin jecel uu qabo uusan maarta adigana kuu siinin oo asagana uusan eber uga dhigin waayo labadiinaba waa la isku kiin imtixaama ma ahan siduu hadda shiiqa sheegaayo waay jecel adiga kuu qabo intuu adiga wax kuu siiyey asaga faqiir ba uga dhigin hal maroo kun fayakuun dhahu taajir uga dhigi karaa laakiin wuxuu ugu talagalay inaa anaga micnuu ka wataayo na lagu imtixaamo waa imtixaan bal inaa maalkaaga wax ka bixinaysid bal inaa maalkaaga wax ka dhiibaysid bal inaa wax ka sadaqaysanaysid waayo bisha keliya oo ilaahay 12 biloodaan la sii fiiraa iska socon aan cunayna aan dagaalamayn wuu soo duu ma sha Allah aytamayna bishan waa bisha kaliya oo la rabo inaa afkaaga nyim siisid quraankana akhristid tasbiixdana samaysid sadaqadana la baxdid waa bisha ugu fiican waay wixii sanadka aan soo gashay dhan aan ku dhaqaysid wixii kala dhan waa la soo mooday gabdhihi ducadooda aan daara hadhow idin sii wada bismillahir rahmanir rahim ma sha Allah alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أعزاء أيها الصائمون الله سبحانه وتعالى هي محده الله ينوافقي بالله وصل بركة الله ينوافقي يا مهندغان ما شاء الله من كلمة وجيك إذني وكفرح سي رانت مسؤولية إن الله نصارناتي إن قف ولا على مسلم صومنا إلا عفري يا الله مسؤولية نصارناتي ثم أتنوا بالنا قاضي الله تبارك وتعالى يا مهندغان دتك رانتها أبابولي يبلنا ما مهندين جنو يلنا ثم جيك جبر ولا على يا مسلمين تي هرب لنا عفري جري لما معلومات يا عفري دي
yana mayba lena ilaahay subxaanahu watacaala kii dhoor adduunyo aakhira آمين mayba lena maalinta nhayna yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim ما شاء الله maalintan kushid badan ilaahay subxaanahu watacaala kan kashafa hooska ilaahay subxaanahu watacaala ka gili janaasna ilaahay subxaanahu watacaala uminti jannat alfirdows آمين ilaahay subxaanahu watacaala ka jeelena unun dajarna dhammaantana inti awlaad oo yaqalina ilaahay subxaanahu watacaala kan hifdi يعني إلهي سبحانه وتعالى أنت عداوده قوبدا ميدي روغدان إلهي سبحانه وتعالى كدور يلنا والدين تينا الدنيا آخرة يعني إلهي كشفا إلهي كدور إلهي رحمة إلهي سبحانه وتعالى ونما مسكول طوق دانا لكن جيك ميبا ميلا يدون كمان نغاني مقلسينو dadka muslimiinta ya kunatay untiyo baahan yihiin darantii afriidi mebalana mahadnaqa ilaahay subxaanahu watacaala kinka jaazi maalinta qiyaama ilaahay subxaanahu watacaala jannatulfirdows ka jeey dadka kale muslimiinta in mebadan ku baahanya inyo arantan eedanka daydan soonka suba gebagabanayna insha allah taala khayrka halka tartameelana falyatanafas almutanafisun ونون مبني كباهنيا أنتونا يرتم على كدين ينني كباهني وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخ وخير الله سي شيخا ما شاء الله وإيتاغنيا مالين إلهي كانوا ما شاء الله بيدو جوجا وحي مارت دليرada ama maxay ahayd walaalaheen muxsiniinta ama muslimiinta oo ka naxayso oo jecel inay sadaqada baxsadaan oo gacantooda furnaa markay sadaqada u baxsadaan uu soo duceeyaa qeer Allah siiyo waa ma sha Allah tabaaraga waaye ilaahay waxa uga bariyay asagana saynidiis jeceshay Allah u yeelo inuu u saaro asagana miisaankii aakhiro waayo maalin walba wallahi mar waxa jirta aniga aanan ready ahayn oo soo waco oo ilaahay diyaar ma tahay soo gal because aniga dibadiyaan joogaa inaan isku u maleeyna isku saacadna asaga xamar uu joogaa baydhabo joogaa markaas ma yeeshiiqo diyaar miihi aan dhaha markaas uu leeyahay insha Allah because aniga waxa ugu tala galay mar alla markii saas qof wax u baxsado inuu noo soo galo oo ugu duceeyo dadkii wax baxsadeen oo ilaahay ayagana muraadkooda u sahlo because gabdho badan ay soo waxay dhahan abay noo soo duceey waa la bixeena noo soo duceey ay dhahan markaas saas aligeeda aan sheekhyada u qabtay aadan u jecelnahay ducada qof diiday male maalin kasta in loo duceeyo waa rabnaa okay maalin kasta in loo duceeyo waa rabnaa okay isug qof wax ii soo dirooyo maalin kasta in loo duceeyo waa rabnaa ما شاء الله تبارك واكو أرك فرتون ما شاء الله ما هاد لي مكسو قبنا مس عادي انت كشاكي سنين هادو انت عرفت انا كدرستيد هدارت دغخ هدارت شمين ددا هدارت محيه توله اي شيك افركا كل انت واكاسا وا هاد وا كا قبتي marka marabta ma hadlay ma kusoo qabanaa mise way tusinaysa le telefonka way kan aniga way ma sha Allah waa ku arkay fartuun mala qeer Allah ku siiyo ku soo dadaala ma sha Allah inaan maartay dadka walaalihiina ah masaajidada ما شاء الله meelaha maarta qeyrka ah in loo soo kala ordaa fiican waa ikan aniga way suulan ku soo taaga qeyr Allah ku siiyo WhatsApp-kayga shatay oo ii soo dhacay yes waa kan waa kaas aniga waaye marka insha Allah kulli ina hadashid martida u maleynaa fartuunay laakiin hadhowtaan contact sameeynayna masaajidka meesha aragti inaad kaga darsatid haddii inaad dhagaxa kaga darsatid waa masaajidka waxaan sameynaynaa haaf dhagaxaan sameynaynaa inta kale bulkeetiya ka dhigaynaa waayo dhagaxii qaali waayaa liil masaajidkan inaa ciyo dhisnaa rabnaa dadka waxay dhaheen haddiiba xataa meel qabow leh aan helno kuleel waayay dheheen lama yeeri meesha booska waa weyn yahay oo intaasuu ku fadhiyaa laakiin awood uma aysan yeelin meel yariisay dhisteen oo lama yeeri ah oo kuleel dhulkana darina iska dhigteen walaa dhulka hataa ciid waa darina iska dhigteen marka masaajidkaasaan waxaa rabnaa biidni illaahi kariim iskaashata ma kuftaan nahay inaan ciyo والله أنا هذا ساس ما عليك صدف واحد بدل اللي يوفي رسالين والله ضد قذال يقصوا وعان بركة إله إسك بركة يبو وحي يروح عليه البركة كوجر مالينه والله إذا ساس سفي عندك اللي يوفي رسالين أيها والله أنا بينكم شيء غيرين أوكي هيا أبا اسمع لنا دوت اسمع لنا دوب أوكي هدوت اسمع لنا شيخ محو إيسا قري مرك أنا قام ما عرفتي شيخ محو سو دوبو يا جزاكم الله وقدوبة وما تصنت جزاكم الله شيخ وجزاكم الله خير جزاء الجنة ودار قبلي ويكده جيسن دونان إن شاء الله سؤال مجرانا أم لينا هدي جيران مارت وان محيه تولي كوسو قد بالله سؤال مجران وفسحانتهاي فسحاتها إسك أفر ما دام أفر كيدين سودوي هاي حمر إن شاء الله عندي بيدبو إسك أفر كل سؤال مجران هدي سؤال جيران
anaa qorqoraay waa kuusoo gudbinaya kheyr allah ku siiyo waxaan kaloo rabaa insha allah gabar hadeertaan igu soo darsatay fartuuna la dhahaa maasha allah tabaarak inaan waxaan rabaa gabadhaasna usoo duceysid haddaan berri kusoo qabana iyo haddaa hadda fartuun malaaqaa la dhahaa jiiradan ani ida iskula maaragtay iskula hadleyna waxay jeclaatay inay masaajid aan dhisayno ay kusoo darsato ayadana iigu soo duceey hadhowtaan contacta la yeelanayaa biidni illaahi kariim insha allah bal waa u diri insha allah hadduu kuusoo duceeyo wadaadka waa kas haddii kalena beriyaa lagu duceynaa fartuuna insha allah waan u diray kolley hadda wuu arkay hadduu degdegsanayna wuu kuusoo duuba haddii kalena beriyaan soo qabanaya ani waxaan jeclaa markuu life ka soo galaya because hadaa yiri life soo gal roobaa socdoo igu yiri masaajidkan joogaa maxay ahayd toole imaam waay maasha allah anigana ma soo geli karayno waqtigayga cariiri oo ahaa qof iska ciyaal leeyahay hoolaan ahay waxbaan kala dadabaraya gurigan kalena nadiifinaya maasha allah marka haddaan soo galay haddana wuxuu igu yiri ani waqti maba haayibo allah soo duuba irwoo soo duuba markuusan waqti ani aan waqti asiguusan waqti haynin oo ani aan waqti hayo saa aan u fadhiyo wuu iisoo duuba sida hadda gabadhan loogu soo duceeyo kale hadda way maqlay insha allah inuu kuusoo duubaan jeclahay ilahay idinkas waa sugeynaa marka walaalayaalow asxaabay kheyr allah idin siiyo markastaan dhahaa dhalinyaradeyda maanta waa kala maqantaha umalayna afuray sugooyin soonkiya iska cariiri ee dhalinyaro waxaa igu xiran maasha allah ilaa iyo baydhabo ilaa iyo daafeed ilaa iyo afgooy ilaa iyo xamar joogaano iisoo galo mamar dhahaan maamo maarata doolaraan kuusoo tuurna iyo waa kuu sheer garayna maanta waa iga maqan yihiin ayagaa kor ii qaadi jira kheyr allah siiyo idinkana meeshaa gaarsiin kartiin gaarsiiya sheer gareeyo micno male ilaahay wuu noo barakeeyaa wallahi maalin kasta waa soo galaa iyadoo wax yar ku jiraan dadka iyagoo aysan badneen maasha allah wallahi waa la isoo wacaa hawshii waa wadnaa adi ilaahaba noo barakeeyaba ilaahaba baraka noogu darayba alxamdulilah ilaahay mahadiisa wax yaraa barakale marka la dhahay hadda camal waay marka insha allah dadna waxa waaye gadaalay ka fiirsanayaan gadaaluu iska buuxinayaa biidni illaahi kariim marka walaalayaalow waxaan jeclaan lahaa inaan kheyrka u degdegno bishaan waa bishii layska dhaqaayo dembigii 12 bilood aan kusoo dhacnay waxaan soo caynay waxaan soo aflagaadaynay siyaasaan u ordaynaan dhehayna laakiin siyaasadda laftirkeeda waxaa fiican mararka qaarkood in wixii annaga maaragta oo karaankeenna ah oo ilaahayna noo amray anagoona waxna caynaynin waxna dulminaynin inaan xaqa uun ka hadalno ilaahay wuu noo ogolyahay inaan xaqayna soo dhacsano xaqa aan ka hadalno anagoo dadna aanan aflagaadaynaynin because dembiyaa naga soo gaara waayo salaadaadana ma jirto tusbaxaagana ma jiro sadaqadaadana ma jirto qof kale u shaqaynaysaa tii inaan iska xoogaa aan iska ilaalino waaye marmarka qaarkood waa soo galnaa waa caytameynaa ciilaana qabanaayo waa layska maaragta layska dembiyaaba ilaahay hanaga cafiyo wixii aan dembiyownan allah naga cafiyo ilaahay waxaan ka baryay inuu ilaahay naga dhigo kuwii towbada sadaqada dembiga iska ilaaliyo bini aadan aan nahay bini aadan waa iska daciif waxba ma ilaalin karno laakiin inta tabarteena inaan ilaalino waayo hadda wiilaa maalin hore soo gala aad uu caytamay aad uu caytamay والله وان فيري أنا قلنا عينا إسبيشل أنا قلنا عينا وعندها ويل كانيتي عندها صونا باللي جرا إلهي ما كعبسنا يو عندها ور ما جوكت إلهي قبل شديس ودوده ويل كي وعارك أنا بيجك الصادق يوداي وجرني هالإيسو داوي إلهي قبل شديس ودوده وأسكت الضل مينا أنا قبل آدم عرب كان وحدم بيال بدن ونوكينا ولا سقيلنا ولا عيتما ويل كي والله وعارك صادق إيسو دعاء وجرنا تعبانا هي فيري لما بري كهرنا أنا قو إبر نقدر أنا قو نعاي أنا لا واسك عيش هذا وفيري وحنا بالمحو نوع عينا واي ونوع عينا محن كسمين حدو حتى نكرباشة مو ترتيب نو كرباشة سنتين انت كدعدين والله وفيري وأنا هذا أروح ماذا مركزان إيش هذا ساس وفيري وحنا سون واي ما بعرفنا يعني موجودة ضد كان واسك عاي تما أفقين كريه الله هذا والله لما بريك بعد بيجكو سودي أصودا لي سودعي هاي أو نفعه isbitaalka la geeyay fiir ilaahay qabashadiisa waa dhowda ilaahay wuxuu ku yiri muddo adoonkeyga iida siyaasi baa ku jiree wuxuu ku qaldan yahay ku sheeg laakiin caytin qabiil dhan fiiri qabiil dhana caynay qabiil sheekh iyo shariifa ku jiro qabiil oo 3-4 qofood ka xumaatay 3-4 qofood qabiil ka xumaatay asaga dhan hadaa u gaftid ka waran qabiilkaas waxaa ku jiro awliyo waxaa ku jiro sheekh dad waxaa ku jiro geedaha qaarkood geeda aan la gooynina jiro oo markaa taabatid oo barbalenkaa soo gaarayo marka waxaa la rabaa qofka adiga aad u jeedid inuu qabiilkaas yahay asaga ataage asiga caay asiga dhibaatada uu haayo ku macnaha xaqa u leedahay inaad la xifaaltantid oo wuxuu kugu haayo dhibaatadu kugu dara laakiin qabiil dhan haddaa u gaftid oo sheekh iyo shariif ku jiro qabiilkaas ishooda ku helayso ma fiicno mar walba waa la iska ilaaliyaa waxaa fiican inuu ilaahay kugu toosiyo towbada markaad hadlaysid oo markaad hadlaysidna aad iska ilaalisid inaad caysid qof qabiil معناها كتر سن إن هالكاس قف أد قبيل كنا أدو أجائي فيسد wax looga xumaado waay marka ilaahay toobada hana waafajiyo asxaabay noo sheer gareey beej kasta noo geeya masjidkii daafeed wuu noo bilowday
xalay gabaraa microfonka qabsatay haddana fartuun waxay tiri waa ku jira I think inay masaajidka ku jirto maasha allah tabaarak ayadana waan soo dhaweynaynaa kheyr allaha siiyo masaajidkay iyadana waxay dhahda waa ku darsanayaa shiiqana beritoole insha allah live ah loo soo qabanaya hadda waa u duubay waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay beriyaa ku fiican beriyaan live usoo qabanaya oo fartuun loo duceyna fartuun malaaq kheyr allaha siiyo marka walaalayaal oo $5 $10 ani lacagta kuma soo qoray laakiin qof walba masaajidkaas wuxuu awood u leeyahay qof walba magaciisaan qoraa lacagta markay kusoo dhacdo risiidkaan arkaa magaciisaan arkaa lambarkaan arkaa maasha allah dhalinyaradii yaryareedo halka dollar iigu soo tuuray iyo $1/2 waa arkay maasha allah tabaarak teeda kale waxaa jirta casho ay bixinayeen gaarsiiye ayagana insha allah biidnillahi kariim maanta gaab yaray galeen beritoole haddana haddii maarta shala way bixiyeen maraykanka dad kasoo dirsadeen maasha allah tabaarak waa tii hadda ugu duceynaya shiiqa waa isku daray gabadhii soo baxsatay iyo dadkii maraykanka gaarsiiyey shala afurka ay siiyeen labadaba waa isku daray maasha allah tabaarak waa loo soo duceeyey marka waxaan kaloo rabaa gaarsiiye iyagana qofkii nagu soo darsanayo oo gadaal iga fiirsado lambarkayga waa kaasa gaarsiiyena lambar gooniyay leeyihiin haddaad maaragtay aad kala kulantiin maasha allah tabaarak oo aad wici kartiin waca maxay ahayd toola lambar gooniyay leeyihiin ayagana 69 ugu dambeeyo haddii kale keega xataa haddaad intaad isoo wacdiin dhahdeen gaarsiiyaan rabnaa cashadan aan ku darsano waanu gudbinayaa magacan waa idinka qorayaa marka saas aan ku wada shaqeyno walaalayaalo waxaan anaga gacmaheen aan ku samaysano ayaa aakhiro wax noo taraayo waxaan annaga aan maaragtay waxaan annaga aan aakhiro maxaa kaa horeeya haa kilibka daraad alla waa kana kilibaan rabaa inaan idin dhegeysiyo daraad waa soo geliyey daraad intuu iigu jiray inta ma soo gelin laakiin hadda waa soo geliyey kilibkaasa idin dhegeysiinaa ninkii dhintayoo weligiis sar lee dhisaaye oo weligiis sadaqa baxsanin intaan kusoo riday isagoo idin dhegeysiinaa maasha allah aan helo allah ii kasa waa kanaa sug gabaraa ii soo dirta kheyr allah siiye sugya bismillaahi raxmaan shiiqa waay kan sug gabadhaan fiirina bismillaahi shiiqa waay kana bismillaahi intaan kusoo dira intaan kusoo dira wallahi waxay ka sheekeeyeen ma aha inta eed meeshaan kusoo diraayo intaaba kusoo diray ninaa waxaa layiri wuxuu dhisanayaa layiri maalin ilaahay keeno guri wiilaa walaal iisoo qoro walaalo hadeerta inaad soo qabso wiilka ugu dambeeyay 805 wato 806 miya 805 soo qabso insha allah allah inaa helo allah igu dugo sugbal kilibkaasiyta aad u fiicnaa wallahi intay kusoo rida talo intaan kusoo rido bay inta uma soo gudbinin taleefonkaanaan ka fiirina kilibkaas wuxuu ahaa wuxuu ahaa maalin ilaahay keena saruu dhisi jira sar intuu ku jira umaleynaa xaggan kusoo ridaay maalin kasta saruu dhisi jira ayaa la yiri ninkaas markii dambe wacalaykum asalaam waxmatullahi wabarakaatu shamsudiin maama soo dhawow maalinta dambe waxaa la yiri ninkii wuu dhintay wuxuu ka tagayaa la yiri lacag leh maasha allah tabaarak oo waxaan ku leeyahay adduun oo dhan lagu dhisan karo marka familkii iyo waxaa isku imaadeenaa la yiri qaraabadii waxaa la yiri ninkan lacagtii ayaa maxay ahayd toola loo dhaxal waaye lacagtan hala qaybiyo markaasaa waxaa la yiri lacagtii hala qaybiyo markii la yiri waxaa la dhahay wiilashiyaa hadleen marka wiilashi waxay dhaheen aabaheen qaybiska waxaa ka daran inaan u sadaqeyno waay waa weligiis masaajid ma dhisinay dhaheen sadaqana kama bixin ceelna ma qodin waa kana waa helay sika idin daaran waa kana qisada dhegeysta aamiin inta soo wadana allah ku hanu inta soo wadana allah ku hanuuni aamiin waxa ayaa hor laysoo diray oon arkay nima waxaa liiga xamar deganaay oo dadkii hore ah oo dadka magaalada bartamaha ugu yaraan 50 guri kuna 50 boosoo kulaayo oo dhisoo daraya maasha allah dadkii hore ahaa ninka haddii uu dhintay door boqol ilmaha kale ceel lagu dhalay haddii uu dhalay ninkii wuu dhintay waa la soo duugay xaajiblo waa la soo duugay waa laga yimid ninkii waa yiro ahay waa dhintay waa la soo duugay waa laga yimid waxaa la yiri dhaxooli hala dhaxla waa isku yimideen ilmi adeeryaalka waxay yireen marka halkan guri oo dabaqa ah mal maqlooya adoogii waa loo gadaa ceelaa loogu dhisaa masaajidaa loogu dhisaa ceelna waa loogu qodaa masaajidna waa loogu dhisaa halkan guri oo dabaqa ceel dad ooman meel laga oomaya ceel laga qodaa laba masaajid saddex masaajidna waa la dhisaa guri waxaa yiri wuxuu guhaa camal 250 camal guri guhaa guryaha dhan waa $250 kun oo dollar ilaaraa soo fooda marka
إلا الماء دور بحواي ما شاء الله غير سوبود أدوغي أنا أقول عيل مجعلين إنه لو قضوا مساجد مجعلين سبحان الله ورمحا أدوغي أساس ولاده هدو مساجد جعلي هو وان نورا يفهم تديس وساس كراي محو قدوا او نسوا صح هدو عيل جعلاي محو ان تديس انت قط عيل او قدوا انتو نورا اسو ما جعلين ركبك خولا aan lahaana ma ceelka loo qodaa masaajidka loo dhisaw xoolaha asaga waa ka wareegeen ana ka askari culimada fadhida sax waa idin waa la iska dhaafo maxaa nin walba inta noosha waxaada baxso maqlasiin waxa saa la dhalooya nin walba inta ilmi waa diidana liir nin walba inta nooshahay waxaada hormarso nin walba soo ku anina dhiibana umaleenayo ma dhiibina liir hanta u dhaafa mugaadayso qoorta hadda shanin hantidaada qabrigaada geyso qabrigaada nin walba sida badan ibni aadanka sida badan xooggiisa ayay isku soo mootiyey ayakana xooggooda ha ku moodaan maqlasiin kooda hanti ka soo hela Soomaalidu way yarta 10% hadii leer way 15 nin walba xooggiisa ilaahay kala saarashiisa ku noolay ayakana xooggooda ilaahay kala saarashiisa ku noolaada nin walba xoolahaada sadaqaysa halahaasaan idin leeyahay iyaalka adoogay ku ceel waa nibcaay ana jada masaajidna waa nacbanaay war dadka dhan waa ashhaaday war adoog waa duka jirso u nibcaay masaajid maxaad sheegay waryaa hadda masaajid jecel iyo curaantadiisa usaa iskala ayaa la lahayo ma ugu dhisan way ugu dhisan way masaajida ma ceelis ugu qodan way annaga muku allahaana masaajid jecel noqayro asaga lahayd ka dhigameeyay waa culimada waa aswarsad sax way ber usuga malaha liir waa la dhaxal leemha waa idin sheego dalkaygo inta warkayga gaaro xoriina baxsada hor u sadaqaasta hor u dhiib lagu mahaya sir iska hayni kala u xiraaye hor waxa ku hor u dhiibto wuxuu Allah nagu daro آمين الله يقدر إلهي إذا كنت أمد الله محمد وربنا الله يقدر إذا كان الله إذا يقدر آمين وحين صدق استوى عليه على صائدين لهداك قفل إقرار لهذا بقلتوني أفر قرآنك عدد ديس بإقرار لهذا قصة أنا ما شاء الله قصة أنا قبل رئيس ودرت ما شاء الله إنا سيانا أملينا علمي ما بسيننا لير وادي ذي الله بقول يا كنتم كل $1 وكتجي لير وين الديدين واحد هنا لير markii hore uu joogay muxuu u baxsan waay asaga sadaqada anaga hadda ma bixinaan lacagtaan yana laga taabanay mujado oolaada naftirkeeda marka sadaqada ka bixinaysid ay ku noqonayaan oolaatu baariyo oolaatu saalixiya oolaad wax ku qabanayo oolaad marka dhimata sadaqa ku bixinayo ya ay noqonayaan aliir laakiin oolaada naftirkeeda sadaqada lagu kiciyaa maahine hadda waa kana fiir ase hadda sadaqa baxsan lahayn maanta way ka nixi lahaayeen hadda tan waxaa keenayso macnaheedu waxay tahay markuu noolaaba sadaqa ma ka bixinaynin hadduu sadaqa ka bixin lahay maalkaas maantaas oolaadaas way caawin lahaayeen laakiin maanta oolaadii maxay dhaheen jacay ku dhajiyeen wadaadadii waxay dhaheen runtooda waa iyaga iskale maadaama uu dhinta ninkan markuu noolaayay ahayd inuu sadaqadiisa baxsado balka waran sadaqada waxa waaye maalka guriga familiga awlaada caafimaadka allah haddii la ogaan lahay leh ani horta saa u bartayba waayo maasha allah sanadkii saddexaad waayo inta ka caawi inta aanan siin karinna hay cafiyaan badhaha wallahi markasta because kaamkii waa weyn yahay hawshan waxa laga rabay dawladda ani siyaasiyiinta isqab dhabay waxaan bala yaab weligood iyagoo kaam tagayo raashin u bixinayo maartay dadkaanita oo laga galayo maartay xaqa laga galayo kaararka loo sameeyay siyaasiya lagu leeyahay siyaasiga hadduusan dadkii ogeen shicibkii ogeen ilaan cumar bin khadaab iyo abubakar bin sadiiqba waxay ahaayeen special cumar bin khadaab xaafaduhu ku wareegi jiray wuxuu ogaan jiray dadka gaajaysan iyo ogaan jiray xaafaduhu u dhagayn jiray macnaha u dhagaysan jiray waxay qabaan u dhagaysan jiray dadkii gaajaysan maalin wuxuu maqlayaa leeyahay hooyo cunugeedoo gaajaysan markaas intuu carruurta u keenaa weliba uu karis ugu darayaa leeyahay marka waxaan la yaabana ani siyaasiyiintan kursiga la isku qabdhagooyaaye shicibkii yaa u muslin ah oo gaajaysan hataa ma isku dayin miya inay hal mar intay istaagaan ay maarata wax u qaybiyaan ay lacagtoodii intay iska gooyaan allamugo aakhiro waraajire laakiin annaga waxaan rabnaa shaqadeena maahan annaga tee ninboo naftaa layiri nabiyo ummadda ninba camalkiisa godka la galaa qof raacay male walaa qabiila ku raacin walaa siyaasiya ku raacin walaa walaalkaayan ku raacin walaa aabaayan ku raacin laakiin markaad adiga sadaqadii bixisid oolaadaadana way kugu xafidmayaan tomorrow markaa dhimatidna way kuu bixinayaan hadda ilmahan waa ujeedin waa diideen waxay dhaheen maba ku jirnay dheheen annaga ma dhiibeen ninkan lacagtiisay dheheen naga dhaafay dheheen maxaa naga galay dheheen waxba nagama gelin asaga ha dhiibto asi waaba dhintayaa layiri muxuu dhiibanaa wax ma naga gelin lacagta $250,000 ka dhintaa layiri wixii intaa ka tegi laheed oo ka dhiman laheed at least sadaqa ka dhiibo
waxaaga meelay kuu korayaan camalkaaga aakhiraad maaragtay aad ku meel gaari marka asxaabay khayr allah idin sii idinkan ajir allah idinka dhigay ajira idin saarane noo sheer gareeya guruubyada noo geeya bejkiina xataa ku sheer gareeya bejkiina qofkii soo galo oo rabo inuu sadaqa bixiyo for example haddaa adi bixin karin bejkaaga markaa sheer ku tiraadid fiiri sadaqada waa la yaraysanaa siyaasadana waa la sheer garaynaa because dadka iscaynaayo caytintaas waxaasaa la rabaa ilaahay ka baqa siyaasadda naftirkeeda qaara waxaa muhiim oo war fiican ku jira kaas dhib male haddaa sheer garaysa laakiin siyaasad waxaa jiro laiscaynayo laiskarbaasha way sheer garaynayaan beejkay gelinayaan sadaqadii ilaahay loo taagnaa masaajidka war sheertaas aad tirahdo ajiraa ka helay sheertaas aad tirahdo beejka aad gelisid adi haddaadan dhiibi karin oo aad ciriiri ku jirtid qof kaloo beejkaagii soo booqday ayaa dhiibaayo horta taas ma ogtihiin tan keliya hadda ani aan ku jira maahane mar kasta oo aad ku aragtiin beejajka sadaqooyin sheer beejkiina geliya war waxaan facebook waa idinkama iska lihiin beejka ma dhex seexanaysiin maxaa idinka gale sheer haddaa dhahdiin dad dibadda joogo dad maxay ahayd toola oo soo dhiiban lahaa dad xamar joogo dad meelaha kale ku maqan ayaa waxay samaynayaan markay beejkaaga ku arkaan sadaqadii waxaan hawshaan la bixinaayo xataa iyaba dhagaysanine ay akhriyaan tiitalka sadaqa waaye masaajid la dhisaayo afur la bixinaayo waxaa laga yaabaa inuu rabo sadaqa inuu bixiyo laakiin meeluu ku hagaajiyo oo rasmi aysan lahayn meeqaan nala soo xiriirta oona dheheen meelaan ku hagaajinoo rasmiyaan weyne meeqo aan nala soo xiriirta annaga meelaan ku hagaajinoo rasmiyaan weyne alxamdulilah haddaaba adiga sadaqadii aad dadkii caawinaysa adaan meeqa igu soo darsata ani oo buruufkoodiina aan u keenay marka waxaa waaye sadaqadiyaaba hadda waxay noqotaba dadaa jiro sadaqadii ninkii la siinaayey iyo kii soo qaadayay dadaa dhex taagan ani hadda dadkaasaan ahay waayo qofkan soo bixinaya sadaqada iyo kan loo dhiibayo aan dhexdooda ku jiraa yaay og marka ilaahay unbay og haddaan aniga sadaqadooda qayaamo iyo haddaan ani lacagtooda qayaamo ilaahay unbay og qof iyo og male laakiin haddaa si fiican aad u dhiibtidna dee sidii la rabo waayo aniga bulis waaba kusii daraaba jeebkayga ma marka qaarkood dhalinyarada markay soo adeegaan bas ma haystaan ilaa qofkii sadaqada soo dhiibana ma laga goy karee bas ma haystaan xirxiritaan uu rabaa juuniga bariis markaa soo gadid timirta burka sokorta waa la xirxiraa bacyaasha iyo wixii lagu xirxiraa qarashay u baahin ma markaasaan kabnaa annaga aniga especially iyo maaragtay gaarsiiye maadaama asagana casho bixinayo marmar geedaha lagu guraayo cashada wallaahi asaa bixiyo marmar asaa ku daro dadkii markay soo dhiibtaan $100 ay dhahaan waxaan rabnaa neefkii oo kontonka kalena bariis markay dhahaan 25 30 marmar 50 uu gaaraa anigu marmar waa la kabaa aniga laftirkayga waxaa lagu soo gadayaa bacdii la fidinaayey oo markay qaybinayaan iyo waxaa lagu soo gadaa geedihii one time news qarash u baahan yahay iyo bacyaasha kale markii one time news kala geliyo lasii gelinayo baabuuray wataan waa artood lasii saarayo kaas qarashkiisa marmar waa isku darsanaa khayr allah siiyo agaasimaha tiim gaarsiiyo norway degan maaxiye cabdinuur khayr allah siiyo wallahi waa isla shaqeynaa wallahi mar asaa saaro markaan aniga haynin wuxuu dhahaa anaa saaraya markaan haynana waa kala jimicsanayna waa ku darsanaynaa hay laatiishan anaa dhiga laatiishan qofkina muxuu soo baxsada 100 teena ma sheegno annaga aan rabna inaan awlaadeenna aan maaragta maasha allah tabaarak ay noogu xafidmaan rabnaa sadaqadeena annaga waa qarsan tahay laakiin tii dadka soo dhiibtay ayaan sheegnaa taas naftirkeeda aan baxsan annaga sadaqay noo tahay cover waay marka waxaa la rabaa saas inaad daacad u ahaatidaa la rabaa laakiin lama rabo in qofkii sadaqada soo dhiibaayay iyo kii loo geynaya in adiga dhex surin dadaa hadda jiro hadda daraad maalin ninaaba waxaa la yiri qisaaba laga sheekeynaya intaan u jeeday ninaa waxaa la yiri ninuu u tagay wuxuu dhahay haye lambarkiisii baraha bulshada kusoo arkay wallahi wiilaa soo gala facebook wuu ka sheekeynaya war wuxuu yiri waxaan arkay in lagu soo caawinayo gaari lagu gadayo ninka jiisu ahay wallahi facebook aan ka fiirsaday baraha bulshada la soo geliyay jiisu ahay war waxaan aragnay in gaari lagu gadayo haye gaari waxaa lagu gadooyaa maasha allah haye gaarigii waa lagu soo qaadi lahaaye lacagtii lagu soo qaadi lahaay oo taksiga ayaa la rabaa inaan soo qaadaan rabaa kuu keeno laakiin ani inaan baxo waaye oo gaarigii kuu doono oo haddana gaarigiina kuu soo qaado lacagihii marka oo gaariga aan kuugu soo qaadi lahay qarashkiisaa laga rabaa lacagta laguu soo dirayna oo waxay kuu noqoto $1500 marka lacagtii aan kuu doonayaaye keenso gaarigii baskii waxaan ku raaci lahay keenso bajaajka waxaan kusii kori lahaa iyo markaan xagga tago wixii aan kusoo adi waxaa la yiri taxi mow yiri ma aqaan lacag $250 oo maskiinkii naftirkiis taleefanka ugu jiro dad ugu soo shushubiyo kaga distayalir kaas intuu aakhir gaaran adduunka tiibishaaba qabanaysa bay tiibisha oo kaga ceendoo daawo lahayn fiiri nin jidka iska taagan waaya oo gaari lugaha lagu socdo ku fadhiyo waay war ilaahay ma laga cabsanaayo miya
maskiinka oo sadaqa loo soo tuurtuuraya dad dibadda usoo tuuraya naftarkiisa isku ilaalinaya $250 oo islahay labadan wax maa ku cuntaa mise gaariyaa ku gadataa oo islahay ninaaba ilaahay cirka ugu soo ridayaaba ilaahay ugu soo diribo wuxuu yidhi hay abo lacagta 1500 kuu taalo yidhi aan kuu soo qaaday taksiga iga bix waa kuu soo baxa taksiga waa kuu soo qaada gaarigaan kuu soo gada lacagtaada kale waa kuu soo qaada keen meeqa waaye 250 haya taleefankaaga keen lambarkiiyo qaabta shalab waa ka shubta lacagti war adduunye ma joogno annaka wallaahi adduunye ma joogno aakhir zamaanaan ku jirnaay ilaahay waxaan ka baryaa ya inuu ilaahay masaakiimiintaas inuu ilaahay faraj u furo masaakiimiinta dhibaatooyinka damageka soo gaarooyo wallahi uma malayn kartid dadaa baraha bulshada lasoo gelina aniga hadda hay-addayda qalbi foundation calaamadeedaba kusoo dhegsadaaba maxaaba la qaadanaaba waana la ogyahaaba aniga hawsha aan haya 3 sano aan haya kii qaatan aniga waa ku dacweynaa because lambaraan aniga ku qabaa UK register aan ahay intaan ka register garaysana 7 numberaan qabaa ani oo 11 ka bilowdo intaan ka register garaysana ani waa diiwaan gashana kii pagekeyga inta soo galo maskiin waxaan ugu soo qabta ama maskiin waxaan u raadinaya inkastoo aniga aan loogadayda soo saarto markasta loogadaan soo saartaa marmaroo ordaayo oon waqti hayno jaam aan ahay maahan inaan iska soo geliy maahane aan geeska kasoo saar maahane kii qaato waa dacweyna ani lacagta oo ku qaadanaya iska dhaafi usaab ani lacag ka rabaaba marka dadkii masaakiinta ahay ma la caawinaa mise lacagaa laga shubanaa an taasaan la yaabana wallahi masaakiinta ku dhibaataysan xamar oo jidka taagan oo la qayaamayo maa cadadna ayagan intaysan aakhiro gaarin adduunkeyba wax ku arkayaanba adduunkay imtixaan ku arkayaanba waxay u malaynaya inay ka baxsanayaan marka walaalayaal dadkaasaan u taagana ani marka bulis waxaanba sii jeclaaba haddii ilaahay ii kaso oo aan dhaqaalahayga ana ii soo aruuraan aan helo waxyaalihii ani aan daldalbada iyo maxay ahayd toole beejka xataa aniga waxaan gashtay ma sheer gareeyaan xataa dadku waxaa rabaa in la sheer gareeyo meel la gaarsi ma la sheer gareey ani saa u sheer gareynaya waa daale inkastoo hadda aan rabo beejka caddaanka inaan ku dhex rido because gofunda la dhahaa meesha caddaanka haddaan ku rido hal naagoo caddaan ah bisaa kusoo rida lacag hadda because maalin horeetaan gabadheedi waxaan dhahay instagramkaaga ii geeyaan dhahay laakiin mar walba in waxaa la rabaa update laga dhigo ayagana iska dhalinyaro waayo way iiga dhigi waayeen updateka way iiga dhigi waayeen hal maray geliyeen wallahi naag caddaanaa hal mar lacag kusoo shubtay maasha allah tabaarak marka beejidkii waa arkay dadaa 500 dalbada dadaa $500,000 dalbada waa loogu shubay wiil soomaaliya oo la dilay allah u naxariistay familkiisiya waxaa loo dalbay lacag kuwa kaloo waxaa dilaynaa la yiri oo madow iyo caddaan ah asagana meeshuu ku jiraa gofunda la dhahaa beejka qofkii registration oo charity haysta wuu maaragtay wuu dalban karaa oo lambarka haysta sideedoo kale marka aniga 10,000 ama dalbado maba dhowba dhalinyaro badanaa kusoo rideen maasha allah wiilka waxaa kusoo riday hanadaa kusoo riday kheyr allah si lacag fiican uu kusoo riday gabdhaha kusoo rideen ani xataa waa ku ridi karaa waayo akoonkaaga bible ahaana ugu shubay ama akoonkaaga geline marka dadka markay akoon arkaan way iska baqaayaan laakiin akoonka waxa waaye ani email iisoo dhacaayo hebel oo maaragtay maxay ahayd toole magaceeda hebel ah oo lambarkeeda kaas ah oo emailkeeda kaas ah $10 kuugu ridaa liilay waa la ii sheega rasiidyada hadda waa wada haystaa marka 1 iyo 2 iima joogo 72 baana ilaa hadda baana iigu jirto dollar haddii la dhaho lagu dhufto $130 camal uu noqonaya maalin hore iyadoo jag iisoo direen laakiin aniga waxaan dhahay rejectaan ku sameeyey waxaan rabaa because inaan hal mar wada guro oon howl fiican aan ku qabtaan rabaa haddii ceel aan ku qodaayo iyo haddii maadaama soonka aan u rabay dadkaan aan u rabay inaan afur ku siiyo laakiin way ii naqan weyse marka daraad waxay iisoo direen jagi ay leeyihiin lacagtii shubo marka waxaan rabaa aniga inaan stop gareeyo because ilaa ay isku imaatoy buuxsanto waxaan rabaa hal mar kuwo kaloo waxaa jira iyagana ay arkeen oo laakiin jag iisoo direen ayagana waxay iisoo direen 96 pound ay iisoo direen maasha allah waxay noqonay $150 camal iyo 72 bankas haddii isku dara adii $300 camal waay 1 iyo 2 ma joogto laakiin aniga budgetkayga waa 10,000 pound aan dalbada oo noqonayso haddii dollar lagu dhufto $18,000 camal ay noqoneen marka waxaan rabaa ceelasha hadda masaajidkan oo kale oon la dhibtoonayno oon la rafaadeyno kii busle agtiisa xaafadda ku yaalo asina la dhisaayo oo kale oo baydhabo ku yaalo wixii dhan aan gelin lahaa laakiin wax walba nasiib waaye insha allah biidnillahi kariim nasiibkayga saas noqda gadaasheeda dalbadeen waa loogu soo wada shubay waa ujeeda gabarda gadaasheeda idana kansar inay qabtaan jeclaha oo caddaan aheyd caddaankoodii ugu soo shubay annaga because way ku fiirinayaan dadkan maadaama ay arkaan hay-adda inay tahay hay-ad oo u dhaqdhaqaaqaysa africa jaa waxay kugu daynayaan qaarkooda kuu garanaya caddaanka naftirkooda laakiin ayaga badanaa caddaankooday ugu shubaan markay arkaan caddaankooda oo kansar iyo maxay ahayd dad ka dhinteen gabar yaroo waxaa arkay idana aabeed laga dilay by accidenti oo loo dalbay meeshay ku jirtaa iyadana waa budgetkiisa 500,000 waaye wuxuu u maroyaa 3,000 wuxuu u maroyaa pound 200 lee u dhiman
uu buuxsamooyaa marka markay arkaan adiga maaragtay inaad africa ka dhaqdhaqaaqaysid dadkaagay kugu daynaan dadkeenina saa wax ma bixinayaa waa iska gacan adag yihiin kii ilaahay qadar unbaa soo dhacaya maahane sheer gareyskiyaa xataa lagu sheer garaynaynin ayagiyaan u taagannahay dadkiyaan u taagannahay inaan caawino oon garab siino hawshaan 3 sano anaa u bareera anaa jeclaada inaa ilaahay u shaqeeyo dartiisa camalna ku raadsado awlaadeedan iigu xafidanta alxamdulilah shukru wax weyn oo different oo isbedel aan wallahi waan ka arkay markaan bixiyaba dhib ma arko ilaahay wuu ii maaragtay maasha allah wuu ii nimceeyaa alxamdulilah taasa ilaahay mahadiisa wixii iga kala xirnaayoo kale ilaahay wuu ii furfuraa maxay ahayd oo waxyaalo dhib iigu jiroo kale lacagii aan oo filaynin oo kale wallahi weli waa sii sadaqeeya waa sii wadaa leh sadaqada lee ku tuuraa inta waxaa badan wallahi inta waxaa badan maasha allah tabaarak oo weliba hoosta inta iga soo wacaa idhahayaan ayagoonan iigu jirin balaanka oo ruulkaygana ahayn idhahay waxaan jecelnaha inaana soo caawisid ayagana gacmihii kama laaban karo marmar wixii awoodeeda aan u leeyo aniga shaqsiya ahaan xaliime aan u diraa maadaama ay yihiin dad qaraabe meel kasta iga soo wacaan ilaa i beedhabo ilaa i xamardada iga soo wacaan maasha allah tabaarak oo ay dhahaan maaragtay nagu soo caawi wax na soo sii afurkii na soo fiiri wallahi haddaan bahaayaba ani maka hakrado laakiin haddaa haynin maba haayiba laakiin tan ruulka iigu jirto waxaa waaye tan kaamunka iyo dadka markay maaragta soo diraan inaan buruufki keeno laakiin aniga intii kale waa qarsadaa maba soo geliyaba waayo aniga sadaqa ii tahay bulusteyda waaye anigaa rabo inaan maaragta aan caafimaadna ku helo alxamdulilah awlaadana ilaahay iigu xafido that is why waaye marka hadda imaamyadii masaajidkii daafeedda waa soo geliyay haddaa aragteen ma aqaan haddaa idin tusinaa ayagana waa soo duceeyan waxay dhaheen hayahe mugo kulaalkaana laga bixiyo kheyr allah siiya iyagana waa usoo taaganahay way soo duceeyeen maasha allah ayagana waxaan u taaganahay inaan maaragta aan ku caawiyo inaan la dhisno insha allah aan la qaadno masaajidkaasoo dhisnayna waa arki doonaa ilaahay agtiisa waxba kama aha kii buusleyba iyagoo maaragta wax yar u dhimanba waa kaasa beejkaygu ku jiraa qofkii rabayaa qoraxdii haddana reflection igu ayaa si xunay usoo duubeen maskiimiinta wallahi si fiican uma soo duubin afar gees usoo duubaan dhahay saanay usoo duubeen computerka la kawiinaya iska dhooyaan mar haddii qalad loo soo duro mala wiinay kareen markoosin qoraxda igu soo aadan beejkaygu ku jira yaa asxaabay sugaa dhaafsiina إن شاء الله تعالى كلنا نقول مسؤول يا مرتي أرتيجس إن شاء الله الذي لا يدينا على حسن إذن يونايتا ماما حليمة جدا إمام كديسة على حسن ما شاء الله درنا أفكسن وعريري هذا marka waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah beejkaygu ku jira waa yaryahay anigana refreshka qoraxda igu soo aadan barbalaanka waxay tahay masaajidka haddii mar bulukeeti looga dhiso qabooba u noqonaa hadda buusley oo kale maasha allah wuxuu dhahay wiilka macalin samafale macalin xasan wuxuu yiri qaboob waayo yiri biyo male waa loo arooraa laakiin wuxuu yiri masaajidkii markii la dhisay shumici la fadiyay waa isku qaboobiyo yiri maasha allah wallahi intii ka qayb gashay maasha allah aad u nimcaysatay hadda masaajidkan wixii gadaal dadka iga maqlaan yoo idin dhaafin horta solarkii iyo microfonkii lagu aadaamayay gabaraab xalay la boodaba kheyr allah siiba oo beejka markay soo aragtay tiri haye kii buusley microfonka laga qaatay kan yoo imoodin kheyr allah siiyo solarka microfonka $250 uu ku imaaday iyadaa la boodin waxay tiri hadhow maxay waa la qaatay iyo marbi solarkii wuu baxayba buugooba iigu qoran yahay laakiin hadda dhismadii iyada xataa waxaan dhahay bal hadda nala dhis solarka galaal maya ani solarka waxay tiri dhismadana waa ku darsanayay tiri kheyr allah siiyo dhismadana waa ku darsanayay tiri solarkana waa rabaayay tiri labadaba waa ku darsanayay tiri marka hadda dhismadiyaan wadnaa maasha allah tabaarak hadhowtana markii la gaaro markaas shumaca nuuriyadda kor jiingada markii la daboolayo ayagana say qabow u helaan maasha allah tabaarak
solarkan wuxuu wataa geed oo microfonka wuxuu wataa geed oo koronto uu wataa wuxuu dhana $250 isku oo la shidaayo waay waa la shidayaa because meel waxay joogaan baadiye faynuusta iyo iska isticmaalaan laakiin aniga waxaan jeclahay insha allah bulus hadday ii noqoto haddii solarkaas uu anaf ku yahay dhan anaf uu nagu yahay okay waa haddii kale in koronto loo geliyo waa masaajid wuxuu ku fiican yahay inuu maaragtay maadaama uu yahay guriga ilaahay in koronto ay ku jirto ku fiican yahay laakiin solarkaaba koronto wadataa la yiri haddiiba korontadaas ay ku filan tahay gabadhaanaaba qabsatay gabadhaa qabsatay khayr allah siiyo taasaaba ku filanba maasha allah tabaarak marka walaalayaal noo sheer gareeya dhagaxii aan ku darsano bulukeetiga aan ku darsano shamiitada aan ku darsano aniga xataa waxaa wixii ilaahay iga soo qaaday kii busleeg wax yaraan ku darsaday ilaahay waa ii barakeeyey haddana kanna waa ku darsanayaa biidnillah markaan saas u dhisnana asagana sidoo kale xafladii xiritaanka maasha allah tabaarak kutubyadii qofkii rabo kutubyada xataa waa noo dhiman yihiin armaajooyinkii maasha allah tabaarak ma marka qaarkood aniga xataa waxyaalaha easyga dadka kuma dhibo anaa qaato waa markaan masaajid caawinayo waa ku caawiya sida hadda aan xasan macalin u caawiyo kale maasha allah markii cashadii oo kale waxaan irahay anaa ku caawinayo garabkaagaa taaganahay ilaa imikaas markaan bilaabay gabdho kalaaba igula soo darsadayba xafladii loo sameynaya masaajidka aniga iyo sumeer iyo waxaan baxsanay gabadhaydaan baxsanay balqisaan baxsanay saddexdeenaan baxsanay waa tii geelka iyo eriga la qalay khayr allah siiyo marka hadda maskiinka asagana meesha dhiiqayba noqoto yiri maba la geli karo dhahayay roobaa da-ooyo yiri laakiin roobkana waa iska fiicanta oo meesha haddii geel lagu qalay horta dhiigyada markii la daadiyey rooba baa imaadaa la yiri mogta roobka waxa waaye khayr waaye waayo biima haystaan hataa waa qaboobayaan qofkii waa qaboobaa kuleel dhididay saas u tiraayeen marka waxaa waye neefafkii markii aan qaqalnay oo kale alxamdulilah marka asxaabay waa kaasaa jimcaha soo socdana masaajid ku yaala daafeed ayaa waxaa lagu qabaa maasha allah tabaarak waxaa lagu qabaa xaflad afurin jimcaha soo socdo gabdhaha qabsadeen khayr allah siiyo waxaa imaanayo macala imaamka kulli wiilka soo idhahay wuxuu dhahay adiga ilaa 300 oo waxa waaye wadaade ayay gabadhaas afurinaysaa khayr allah siiyo waana loo soo duuba asagana waxaa la qalaa ama 2 eri ama 3 eri waxay noqoto ayaa la qalayaa because xalay ay soo wacday waxay igu tiri masaajidaan rabay inaan wax ku waxaysto ku darsado markaas waxaan dhahay masaajidaaba jiraan dhahay oo daafeeda ir afurid u baahan waayay igu tiri maasha allah tabaarak masaajidkii aan ku toosiyey masaajidkaasi afurinaysaa jimcaha soo socda waay hadduu ilaahay nafta nagu simbeena sheegana waana soo duuba waana soo gelina marka asxaabay waa mahadsantihiin ajir allah idinka siiyo inta i fiirsatay inta sheer garaysay inta sii sheer garayn doonto khayrka kan waay waxa markay maarkin oo ay kharaar yihiin cid rabta male laakiin waxa markay macaan yihiin oo amal kuugu sugna dadku waa ku wada ordayaan laakiin kan waay kan anaga ku qeyriyna kan waay kan anaga ka helayna adduun iyo aakhiro nimco aan ka helayna kan waay kay awlaada noogu xafidmayaan kan waay sadaqadan waay kan maxay ahayd tolo family haddaa aad leedahay oo family aad tahay oo familkaaga ku qaboobay marka yoo idinka fakarin wax badan aan ku jiray hal sac ku jira isdhahayay gabdhahaasaa loo duceynaya khayr allah sii gabdhahaasaa loo duceynayay iyo wiilkii shalay maraykanka oo baxsaday cashadii iyo tiim gaarsiiyena cashada way wadaan dadkii rabo ha ila soo xidhiiraan ha dhahaan tiim gaarsiiya afurka noogu dara maxay ahayd tole afuraadii wili oo garowa iyadana kaamanka oo maaragtay dadka ku jiraan iyagana wili hal naagle laga siiyey ayadana available waay soonkii asaaba gabagaba iska maasha allah kii kaloo baydhabo maasha allah baydhabaan aad ugu shaqeyna laakiin baydhabo maasha allah saasaan u geynaan ku dhahay saas horta hooyadayaaba maasha allah intaasoo dheer jeer baxsatay way jirantay iigu soo duceeyay iyadana inuu ilaahay iyo caafiyo hooyaday waxay baxsatay maasha allah lacag badan 4 jeeray wax baxsatay markaan saas sadaqada u bilaabayba 3 jeer 4 jeeray baxsatay maasha allah baydhabaa la geey iyadana way xanuunsan tahay ii soo duceeyay hooyadeen inuu ilaahay caafimaad buuxo ii siiyo oo ilaahay ii caafiyo iyadana sanadkan sanadkiisa soonkiisa sanad bashbash iyo barwaaqo inuu ilaahay nagu gaarsiiyo aaday igaga xanuunsan tahay iigu soo duceeyo oo aaday u sadaqa jeceshahay ani hooyadayaan ka keenay hooyaday cumrigeeda hadda maasha allah sadaqadana cumri dheer ay leedahay mogtahay asxaabay taas ka faa'iidaysta sadaqada ha allah caafiya aamiina baay sadaqada cumri dheer ay leedahay hooyaday weligeed meel alla gacanteeda hadda ebel ayadoo weliba maxay ahayd reer talyaan iyadoo shaqaynayso lacagteeda dhan sadaqa ay ahayd hadda markay Canada tagtay oo la yiri patient aad tahay wallahi lacagteeda sadaqa lay ku bixinaysa qaraaba ha dhihin shisheeye ha dhihin maskiin ha dhihin war ma fadhiisanaysa dira ay leedahay $1,800 oo patientkeeda ay ku qaadato $100 ay cuntay ka reebanay reer Canada waa hooyaday maasha allah hadda ingiriiska ay imaatay maasha allah tabaarak way xanuunsan tahay igu soo duceeyay inuu ilaahay ii caafiyo caafimaad buuxa allah ii siiyo cumrigeedan inuu ilaahay u badiyo aad u sadaqa jeceshaa sadaqada cumrigaaga ku dheeraanay cumrigaaga wuxuu ku noqonaa long uu ku noqonaa ani marka hooyaday aan ka raacay iyada aad u sadaqa jecel maasha allah tabaarak ayada aad u sadaqa jecel inkastoo markaan yaray aan dhigi jiray
صدق الله يونيفرسال تي في اللي قصده جرينجر هي مساجد ديسايا صدق الله بكواشن كوان صدق وانا قلت انا قاوي يابن انت عنده والله يابكي انا شاكتا اي ودي جري راشن اما ديق جري guriga hadaan wax soo gado soo adeego male ilmihi war intee geyseen raashin bilaaba soo adeegay because sadaqa ma ka bixin jirin dhalinyara iska ahaa ma jecleen ilmo yaraan korkorsanay waxaan u malaynaa markaan sadaqada bixinaa inay iga dhamaanaysaa u malayn jira waa la jeclaysan jira in beesha abaar leba kasii qaadi jiro male wixii raashinkii mana deeqo waxaan ku leeyahay raashin oo lagu cunayo 10 qofood 2 qofood ku cuni jira aniga naftirkeyga haddaan ku rito male because sadaqa ma ka bixin jirin haddaan cuno iyo haddii kale maadaama sadaqadii haddaan soo adeegno ما شاء الله أذيك يا إسكبار وقيبة ما بدنا معنا يبا قرقي قبو أفركي كاري أما هكارين وحابي يالو أنا وعندها إلما وحطورنا برواقو خبوب إلما حتى ويكون قنايان أكسبت ويكون أكسبت قرينا يانو وحارك يساوي إلمية وفرقاي هذا شلو والله واسوء أذيك ما شاء الله تبارك صدقات إنا في عندها إذين شيء ألاب عرس ما دام أنا فيرها أنك جبنا ما خادي كرتدا اللي يقول إلمي نقار كل جيجرين قارنا ده دناهودا iska raacdeen waa baxay marka qaraweyn aan soo jeclaaday ma sha Allah suuq inta aaday aan qaraweyn soo jeclaaday khariye marka ma soo qaadi kari feertaan waa laga haayay ana soo dhahay wallahi wiil Pakistaana iga hor imaaday waxa muddo qalbigayga inuu ogyahay ilaa feertii hadii laba kabantay ama qaraan barbaleen ii keena ma iska sugiyo gabadheeda tirooy ana soo qabanaa maya ana waxa isleeyahay waxay ka shaqeysaa neersi waa isbitaal ay ka shaqeysaa waxa isleeyahay markay imaato replacement ay sameynaysaa isbitaal markay imaato ay soo socoto ama wixii aadana afurkii ka daahnaa isir aniga inta la lahay wallahi wiila iga hor imaaday iyo baastamiir xoo aan soo gato inta aan ku wado iyo alaabo kale oo alaabta iga dhacday waa ii soo orday oo dhahay maama oo igu yiri do you want help oo igu yiri alaabta inuu ila soo aruuri gurigan wax yara ii dhinay xogaa waa soo daal waa dhidid yes aan dhahay soo baxo yiri wiil yaro waxa masaajidka u socdo waa ilaahay ii soo diro waa ila soo qaaday ilmahey la eegin waa ii soo qaaday fiir guriga ila keena okay aan dhahay jisaaka la waa u duceey ilaahay ku xafidaan dhahay wiil yaro wala masaajidka u socday buwaagna wada dugsi waa u socday ma ogi oo dhalinyaro ah iska 15 jira wiilkii waa kula qaada ma yima ka tagay maam waa kula geeyna oo wallahi ila soo qaada ila ay guriga ila keena khayr Allah si saas way marka muslimka ilaahay muslimku ugu diray because sadaqada u taagana waa maalin kasta waa soo galaa waa qaylina war wax la baxooy war masaajidkii la dhisooy war masaakiinka wax siiyoy anda bulusteydan ku dara that is why muslimka ilaahay muslimkaaga kugu daraayo umrigaaga ku dheeraanayo ilmahaaga ilaahay ku xafidayo baarikaaga dhigaayo waxaagi lacagtaadi ku barakoobayso lacag sadaqada saa u bilaab ebel waxa ahaan jiray safe ma dhigan jirin sadaqadii 3 sano markaan bilaabay inaan sadaqa galo oo dadkii caawiyo oo hay'ad furtay saving iyo waxaan bilaab ebelna markaasaan ka lacag badnay haddaan ka lacag yaray laakiin haddaan ka lacag badanahay because wax saving la dhahaa meel dhiganooyaa maxaa keenay lacagteediyaan barakeeyay waay lacagtaadiyaa barakeysay sunnaa ka bixisay bug ay ku dhahay way ku barakoobay qofka markuu ku soo duceeyo oo aad afurisay uu ku duceeyna masaajid ilaahay oo aad gelisay duca ku soo gaarayso marka ducooyinkaas aan ka faa'iideysano intaan dardaarna iga tahay asxaabe si sheer gareeya jazaakumullahu khayr jisadiina janno ilaahay waxa idin kaga bari nin walba meesha ku oomaya inuu ilaahay sheekh marba waa soo qabana bari laakiin waxa isku taxluujina inaan same time soo galo si maartay gabadheena fartuun loogu duceeyo oo rabto inay masaajidka wax ku darsato biidnillaahi kariim iyo gabadhii iyadana korontada solarka ku darsatay iyadana waxay tiri 250 solarka iyo waxay tiri wax isla qaatiyay tiri labadooda waa loo duceynayaa beritool insha Allah beriyaan soo gala waa mahadsantiin noo sii sheer garee meelaha noo sii gaarsiiya ilaahay khaatimada khayr Allah nooga dhigo ilaahayna awlaadaha noogu xafido kulligeena ilaahay ha naga dhigo kuwa gacantooda furnaado oo gacantooda xiran oo dadka walaalaheena oo masaakiinta oo dhibaataysan oo meel ku dayacan oo maanta la rabo dawladda inay caawiso naga dayacan aan qaban waxa dhir meel hor u baahan hada wax ma ka taray dadkeena hadaan soo galno qaylana way fiican tahay laakiin bulis inaan ugu darno way inaan wax siino caawino siyaasiyiintii la rabay inay caawiyaan way ka fariisteen maanta siyaasi uma weynayo inuu jeebkiisa ka gooyo $100 kulli siyaasiyiinta anaga aan haysano kuraasta noogu fadhiyo war $1 iska gooyi karaan xataa kaaman weligay ma arkin siyaasi wax qaybina ilaa hadda ma arkin wallahi ilaa hadda ma arkin dadkii waa dhibaataysan kaarra lagu wada qaatay kuwa aan u dadaalayna kaar ma qabaan bilaa kaar waay masaakiin hadda kuwii gaarsiiyaan ba ka naxsanaa maanta hadda casho male waxay u maleynayaan cashadii inay siinayaan hay'ad anaga dadka u dhaxgaloona iyagana ma ogaba khabar daara waay هي عشان من شانه بري مركز أصله وجي عليها هي بري نيشانه إلين بريين عشان يا هل هدايني نيشان عيوس أفريقيا كأدي إيش كليهن ما بقى بدأت إنه نحقله يلا قصوا قادو مركز ولا علياله إن شاء الله بإذن الله كريم وناجع عن سكفرنا خير كعن سكفرنا ولا عليهن وديعين هنا عن جماعة إسقفصنا عن عاونه عن سكو إيمانه عن عاونه أنا كنا تاس إنه إلهي
dhexdeeni uu qabow nooga dhex dhaliyo aan u istaagno waxa annagana yeelooya oo dhibaatadan hadda especially digli mirf dhibaatadan soo food saarta waxay tahay dadkoodii ay dayaceen iyagoo u jeeda dadkooda inay caawin karaan ayay ka seexdeen nin walba calooshiisa u shaqaysanayaa laakiin dadkeena haddaan caawino wallahi dhexdeenna islaaxa ka dhalanayo annaga isjeclaanayno annaga isku soo aruurayno annagii hadda divide and rule lagu sameeyaa isku meel ku imaanayna waayo haddaan dadkeena caawino waay oo dhibaataysan oo meelba ku dhibaataysan hadday noqon lahayd masaajidkan dadkan hadda kuleelka dilayo dhulkana darin u fidsan oo ciidna ka hooseyso oo aan u dhisayna masaajidka way soo ducaynayaan ducay hawada noo soo marsiinayaan kii baxsaday iyo anigii qayrinooy inkastoo idinka iga fiicantiin wax baxsanaysiin aan wax yar leen ku darsadaa aniga laakiin qayladii waxaas leeyahay ajarka heshid ilaahayna waxaa waaye ma nagu qadinayo maalinta adduun iyo aakhiro kuwii jannada isku arko na allah naga dhigo oo camalkooda fiicanna shaqaysto waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabi fillaahi khayra idiin dhaafe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu